Subscribe saar halkan si aad u hesho muuqaal walba oo aan halkan soo gelino. Mahadsanid. intayna sheekadana bilaabin oo u baahantahay kaba tayo sare leh oo ku raali gelinaya. Haddaba waxaan kuu keenay kaba tayo sare leh oo aad si fiican ugu harkoon kartid. Haddii aad u baahan tahay kabahan, kala soo xiriir nambarka shashada kaaga muuqda. Sidoo kalena yaala kumiti ugu horeeya. xilliyada ka mid ah laba nin oo tuuga ah ayaa dahab aad u farabadan soo dhacay. Labadii nin ayaana waxay u soo carareen dhankii Keete si ay uga dhuntaan booliiska daba socda. Labadii nin si ay u socdeen waxay soo gaareen meel cidlo ah. Labadii tuug mid ka mid ah ayaa yidhi, saaxiib, dahabkan badan ma qaadi karno oo ma geyn karno meel fog. Haddii booliiskuna arkana, annaga iyo dahabkana waana la qaban doonaa. Midkii kale ayaa yidhi, waa runtaa saaxiib, dahabkan aan ceelka ku ridno maadaama ceelku aad u madow yahay, qof arkayana uusan jirin, qof ogaanayana ma jiri doono in dahab lagu qariyo halkaan. Markaan booliiska baxsanana ayaan soo saari doonaa dahabkan. Kadibna labadii tuug waxay dahabka ku rideen gudaha ceelka. Markii sanduuqu ku dhacay ceelka, waxaa bilowday in cod argagax leh uu ka soo yeero ceelka hoostiisa. Saaxiib, waa maxay dhawaqyadan aan maqlayno? Waxay u egtahay inuu xayawaan ku jiro ceelka. Saaxiib, dhawaqan uma eka mid xayawaan, maxaa yeelay xayawaanadu ma bixiyaan codadkan argagaxa leh. Kadibna booliiskii ayaa waxay soo gaareen meeshii ay joogeen labadii tuug. Booliiskii ayaana hareereeyay tuugadii, waxayna ka hareereeyeen dhinac walba. Booliiska ayaa idin hareereeyay, mana baxsan kartaan. Haddii aad isku daydaan inaad baxsataan oo aad isku daydaan inaad carartaan, waa laydin toogan doonaa, waxayna dan idinku jirtaa inaad isdhiibtaan. Saaxiib, waa noo dhammaatay, hadda maxaa sameynaa? Haddaan cararno waana dili doonaa ee halkeen. Ha walwalin saaxiib, inta naf nagu jirto waan halgami doonaa. Hana walwalin, dahabkii si fiican baan u qarinay. Halkee buu yaalaa sanduuqii dahabka ahaa ee aad xadeen? Si degdeg ah noogu sheeg. Haddii aad noo sheegi weysan, waan idin toogan doonaa labadiina. Taliya, cabsi darteed dahabkii waxaan ku tuurnay webiga gadaashiisa, mana hayno hadda. Laba askari si degdeg ah uga dira webiga oo soo baara dahabka inta aan labada nin aan geynayno saldhigga booliiska. Kadibna booliisku waxay labadii nin geeyeen saldhigga booliiska. Kadibna labadii nin ee tuugada ahaa waxaa lagu xukumay 5 sano oo xabsi ah, laakiin booliiskii ma aysan helin dahabkii. 5 sano ayaana si tartiib ah u dhamaatay. Ugu dambeyntiina labadii nin markay xukunkoodii dhamaysteen waa la sii daayay. Ugu dambeyn waan ka baxnay xabsigii. Saaxiib, ma sugi karo ee aan tagno ceelkii si aan u qaadano dahabkeennii. Haye inakeen saaxiib, aan tagne. Kadibna labadii nin waxay soo aadeen dhankii Keete si ay u tagaan ceelkii ay dahabka ku rideen. Muddo yar kadib waxay soo gaareen ceelkii. Fiiri saaxiib, kan waa ceelkii aan dahabka ku ridnay. Waxaa buuxiyey laamo badan oo qalalan. Labadii nin waxay bilaabeen inay fiiriyaan gudaha ceelka. Saaxiib, ceelkan aad buu u madow yahay, dahabkiina meelna kama muuqdo. Waxaan sameynaa hadda? Saaxiib, hal arrin samee. Gel gudaha ceelka oo eeg halka uu dahabku yaallo. Saaxiib, ma garanayo ceelka inta uu leeg yahay. Waxaa laga yaabaa inuu aad u qoto dheer yahay, waana khatar, mana geli karo. Markaas ayaa labadii nin ka mid ah wuxuu ceelka ku tuuray dhagax si uu u cabiro dhererka ceelka. Labadii nin waxay bilaabeen inay dhagaxaan badan ku tuuraan ceelka. Kadibna ceelka waxaa laga maqlay codad cabsi leh oo sidii bahalkii u ciyaya. Saaxiib, ma xasuustaa isla codkan oo kale ayaan maqalnay markii aan dahabka 5 sano ka hor ku tuurnay ceelka? Saaxiib, aad baan u baqayaa. Ma ruuxaan baa meeshan ku jirta? Aamus nacsiyow, maxaad ku hadli? Ruuxan meeshan kuma jirto, waxbana kuma jiraan ceelka. Kadibna naagta ruuxaanta ahayd ayaa gacanta si lama filaan ah ugala soo baxday ceelka, waxayna qoorta ka qabatay labadii nin mid ka mid ah. Saaxiib, badbaadi, iga qaba naagta ruuxaanta ah. Kadibna naagta ruuxaanta ahayd ninkii waxay u jiidatay gudaha ceelka. Ninkii kale ayaana wuxuu raadiyey xarig si uu ceelka u galo. Xarigiina wuxuu ku xiray geedka, wuxuuna si tartiib ah ugu sii degay gudaha ceelka. Markii uu ceelka galayna wuxuu arkay saaxiibkiisa oo suuxsan. Saaxiib, toos, aniga ayaa halkan kula jooga. Saaxiib, ma adiga yimid? Halkan waxaa joogta naag ruuxaan ah, anigana waxay iga tagtay mid ahaan. Marka hadda cabaar ayaan nasanaynaa. Saaxiib, eeg halkaas, sanduuqii dahabka ahaa ayaa yaala ee aan qaadano oo aan halkaa ka baxno. Labadii nin waxay bilaabeen inay jiidaan sanduuqa dahabka, laakiin dhawaqii sanduuqa ayaa keenay in naagtii ruuxaanta ahayd ay godkii ay ku jirtay kasoo baxdo. Naagtii ruuxaanteed ayaana wax tiraahday, maanta lagama yaabo inaad iga baxsataan. labadiinana hilibkiina waan cuni doonaa. Labadii nin waxay yiraahdeen, marwa naga raali noqo, kaliya dahabkeennii ayaa halkan kasoo doonanay, mana rabin inaan adiga dhib ku geysano. Naagtii ruuxaanteed ayaa waxay tiraahday, haye bal hiish aan galno, midkiin aan cuno si uu cunto igu noqdo, kan kalena dahabka ha qaado waa iska baxo. Markaas ayaa labadii nin isfiiriyeen, waxayna bilaabeen inay ka fikiraan kan naagta ruuxaanta ah la siinayo. Kadibna naagtii ruuxaanta ahayd waxay siisay labadii nin 2 caleen, waxayna ku tiraahday, qaata caleemahan oo qof kasta magaciisa ku qoro, hana ii dhiibo aniga. Kadibna labadii nin waxay ku qoreen magacyadoodii, waxayna u dhiibeen caleentii naagtii ruuxaanta ahayd. Naagtii ruuxaanta ahayd markay magacyada labadii nin akhriday way yaabtay,
naagtii ruuxanteed ayaa waxay tidhaahday waa yaab labadiinu waxaad diyaar u tihiin inaad nafihiina u hurtaan si aad isu badbaadisaan